السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xilli ay carruurta yaryar badana ku ciyaarayaan wadooyinka iyo guryaha barxadahooda ayaa Sacuudi oo ilmo yar ah oo aan gaarin 10 sano jir wuxuu safar ganacsi oo dhanka badda ah la galay aabihii iyo koox badmaraana ah kuwa oo Hindiya u aaday inay wax ka soo iibsadaan. Sanado yar kadib waa weynaaday wiilkii yaraa wuxuuna noqday wiil dhalinyaro ah oo xoog leh isla markaana xambaarsan riyooyin iyo hami sare oo dhanka ganacsiga ah. wuxuuna yaqiinsanaa in riyadiisa uusan ku gaari karin dheeldheel iyo fadhi ku dir. wuxuuna jeclaa inuu samaysto ganacsi gaar ah oo asigoo madax bannaan yahay. sidaas daraaddeed wuxuu aabihii ka codsaday inuu ka iibiyo doonta Aldaawa oo ahayd doon ka samaysan alwaaxyo iyo geedo. Sacuudi ma haysto lacag kaash ah oo aabihii doonta kaga iibsado. sidaa daraaddeed wuxuu aabihii ula tagay qorshe oo ah in bahwaani doonta ku qaato badeecooyin isla markaana isaga kala goosho wadamada Hindiya iyo qaar ka mid ah dalalka Afrika oo ugu horeysa Soomaaliya. faa'iidadii bahwaani xooggii uu ku xamaashay safaradaasi ganacsi uu ka macaasho isaga bixiyo lacagta doonta. bahwaani waa u suura gashay inuu aabihii ka iibsado doonta Aldaawa. markii uu bahwaani gacanta ku dhigay doonta wuxuu bilaabay safar ganacsi oo joogto ah isla markaana nidaamsan. wuxuuna bahwaani gali jiray safar dhanka badda iyo biriga ah oo dhaadheer. waxaa hubaala in dhammaan safaradaasi aysan ahayn kuwa raaxo leh. waxaa jiray safar dhanka badda ah oo bahwaani naftiisa qaaliga ah ku weyn tagay. waxaana u suura gashay bahwaani inuu xaqiijiyo guulo yaryar oo isdaba joog ah. maalmaha ka mid ah wuxuu bahwaani u soo safray Soomaaliya asigoo badeeco sita. kadib markii uu ka macaashay suuqa Soomaaliya ayuu dib ugu laabtay waddankiisa. intii uu dhex sii marayay ayay la xumaatay in uu waddankiisa ku laabto ayadoo doontiisa faaruq tahay. sidaas daraaddeed wuxuu ku soo leexday dhanka xeebta. kadibna waxay bilaabeen asigii kooxdii la socotay inay gurtaan xaabo badan isla markaana ku qaataan doonta. markii bahwaani tagay dalkiisa Cumaan wuxuu dib u iibsaday qoryihii oo Soomaaliya kaga soo qaatay sida sharci darrada ah. safar kale oo bahwaani ku tagi lahaa dalka Hindiya si uu halkaas u geeyo badeeco waa uu ku fashilmay kadib markii badda ay ku kacday isla markaana gebi ahaanba gadoontay doontii. bahwaani ku badbaadis dirqi ah. dhibkaani ma uusan gilgilin casiimada bahwaani mana uusan dareemin wax qoos ah bal iskaba dhaafee waxaa kor u kacay kalsoonidiisa iyo kartidiisa. waayo waa nin doonaya inuu guulo gaaro. sidaas daraaddeed wuxuu sii watay hawshiisa ganacsi. bulshada dhexdeedana wuxuu ka noqday nin caan ah oo ammaano leh isla markaana oofiya ballamaha. sifadaani wanaagsan oo uu leeyahay bahwaani waxay u sahashay inuu kasbado qulubta macaamiishiisa. wuxuu bahwaani ku soo xiray suuqyada dalkiisa Cumaan, suuqyada caalamka sida midka Baghdad ee dalka Ciraaq, kan Dahraan ee dalka Iiraan, suuqa Bombay ee dalka Hindiya, suuqyada Soomaaliya iyo guud ahaan kuwa bariga Afrika. kadib markii uu kubcay ganacsiga bahwaani isla markaana uu helay xoogaa faa'iido ah ayuu bahwaani go'aansaday inuu samaysto shirkad ganacsi. wuxuuna guri ka kireystay gudaha suuqa magaalada Masqat ee caasimadda dalka Cumaan. bahwaani ayaa bilaabay inuu si heer sare u maareeyo ganacsigiisa curdunka ah. waxayna maareyntiisa si wanaagsan u sahashay inuu helo macaamiil badan dhankalena uu macaasho faa'iido mug leh. wuxuu ballaariyey ganacsigiisa. muddo yar kadibna wuxuu furay xarumo kale oo ganacsi maadaama uu bahwaani ahaa nin safar badan. safarkiisaasi wuxuu u soo kordhiyey inuu helo wakiilnimada shirkado waaweyn oo dunida caan ka ah. wuxuuna noqday bahwaani ganacsada wakiil ka ah shirkadaha Jabaan sida shirkadda Casio, shirkadda tiknoolajiyadda ee Toshiba. wakiil noqoshadiisaasi kadib bahwaani wuxuu ku soo baxay nin ganacsade oo caalami ah. bahwaani ayaa markii uu arkay faa'iido ay leeyihiin wakiilnimada shirkadaha waaweyn go'aansaday inuu noqdo wakiilka shirkadda Toyota ee dalka Cumaan. si uu arrintaasi u gaaro wuxuu u safray dalka Jabaan. markii uu ka degay mataarka Tokyo waxaa xiray ciidanka ammaanka ee garoonka diyaaradaha ee Tokyo. waayo waa markii ugu horreysay ay arkaan qof sita baasaboorka Cumaan. sidaas daraaddeed way ka shakiyeen baaritaan kadibna waxay u ogolaadeen inuu dhulka Jabaan hore u sii galo. Sacuudi bahwaan ayaa noqday ninkii ugu horreeyay ee Cumaani ah oo safar ku taga dalka Jabaan. bahwaani ayaa markii ay fasaxeen waaxda ammaanka ee mataarka guda galay dantii uu u yimid dalka. wuxuuna xafiiskiisa ugu tagay milkiilaha shirkadda Toyota. wuxuuna ka dalbaday inuu u ogolaado inuu wakiil ugu noqdo dalkiisa hooye Cumaan. dood dheer iyo wax iska dhaadhicin kadib madaxda shirkadda Toyota waxaa u soo baxday in bahwaani yahay nin leh aragti ganacsi oo horumar leh. sidaas daraaddeedna uu mudan yahay inuu Toyota wakiil ugu noqdo dalkiisa hooye Cumaan. kadibna waxaa la guda galay in heshiisyo la kala saxiixdo. xilligaas sanadku wuxuu ku beegnay 1975. hal sano kadib heshiisyadaasi shixnadii ugu horreysay ee gawaarida shirkadda Toyota ayaa ku soo xiratay dekedda Masqat ee dalka Cumaan. waxaana ogsoonnahay in aad loo jecel yahay baabuurta shirkadda Toyota ay sumcad weyn ku leeyihiin gaadiidka shirkadda Toyota. suuqyada gawaarida
ee caalamka. sidaas daraaddeed gawaaridii ayagoo markabka dul saaran oo weli aan dhulka la soo dhigin ayaa mid mid loo gatay. qof kastana asagoo gaarigiisa isteerinkiisa haya ayuu furdada kala baxay. bahwaani ayaa ku soo baxay ninka ugu hodansan dalka Cumaan, wuxuuna bilaabay inuu hantidiisa bulshada dalkiisa wax ugu qabto. sidaas daraaddeed wuxuu sameeyey mu'assaso khayri ah oo ka shaqaysa dhanka samafalka. sidoo kale wuxuu dhisay xarumo lagu xanaaneeyo agoonta iyo curyaanka. wuxuu kaloo quudiyaa qoysas danyar ah. wuxuu kaloo 17 milyan oo riyaalka Cumaaniga ku bixiyey dhismaha xarun caalami ah oo lagu daryeelo dadka qaba cudurrada wadna xanuunka iyo kansarka. dhanka kale wuxuu 8,500 oo fillo u dhisay dad danyar oo ku nool gobollada dalka. wuxuu kaloo sanad walba lacagta waxbarashada ka bixiyaa kumanaan arday oo isugu jira Cumaaniyiin iyo dunida inteeda kale. wuxuu kaloo dhisay xarumo caafimaad oo takhasusi ah, wuxuuna tabarucaad joogto ah siiyaa qaar ka mid ah dugsiyada, jaamacadaha iyo isbitaallada. gabagabadii Sacuudi Bahwaan wuxuu daryeel gaar ah iyo mushaar mustakafi ah siiyaa shaqaalihiisa. waa nin qiimo badan, isla markaana naftiisa iyo dadkiisa wax u qabtay.